reer soo dhawaada maanta waxaan dhageystay doodii baarlamaanka aniga waliba waqti badan aan ahayn ayaan wax yar ka dhageystay xasaanada lagu siinayo madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xasaanad xildhibaanka loo dhaarinayo xildhibaannimada oo Xasan Sheekhba uu de xasaanad ku helay xildhibaan loo dhaariyo wax iska caadi ah noqoto oo dastuuri ah qofku markuu xilka ka digo inuu xasaanad helo iska caadi laakiin ninkii xasaanada la siinayo waxa buuq ku furay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo meel kasta masaajid hadii lagu jiro iyo tacsi hadii la joogo qof janaase lagu tukanayo iyo hadii xaflad aroos la joogo wuxuu ka hadlayaa afar wiil baa layga dilay oo kabihii lagu aasay anagu afarta wiil xitaa ilaahay hadda cid afarta wiil in Cabdishakuur uu sheegayo beerahoodii maxaa loo waayay haday run yihiin ilaa dad bay ka dhasheen ma in Cabdishakuur baa dhalay ciyaalka doon Cabdishakuur dhalay oo leeyahay caruurtaydii baa la laayay oo isagu uu kalam gareynayay in caruurtii waa meesheeda laakiin afar wiil oo staafkiisa hadii la dilay oo ay runtii tahay maxaa loo waayay odayaashoodii nabadoonadoodii ehelkoodii dadkii cid xigay maalin kasta afarta sano ee Farmaajo afarta wiil kabaha lagu aaso sheegay isagu baa ka hadlay war meeyay dadkii ay dadkan ka dhinteen garanay hadii la dilay waa run oo niman ilaalaha isaga u shaqeynaya bay ahaayeen mas'uuliyadooda isagu qaaday gurigiisa jooga laakiin dadkoodii maxaa loo arki waayay maxaa hal maalin aan u maqal weyn dad xitaa hadlaya oo sidii ninkii dilay wasiir Siraaj ninkii dilay reer Cadaado maalintii Farmaajo oo xiray xabsiga la geeyay la xiray dad buu yeesho Cadaado iyo Dhuusamareeb dadka mudaharaadiyay arkay beesha Habargidira oo ninka hadii Farmaajo diro iska jiro waraaqda hortaalo u saxeexo war sida uu kaasoo dad u yeeshay maxay dadkan haday run yihiin ay dad u yeelan waay oo odayaal ka hadlaya degmooyinka iyo gobolada ay Habargidir diga xitaa xamar ba maxaan u arkay intaas waa qodob oo waxaan idin sheegayaa dadba inaanay ku dhiman meesha wax loo hubaysan haynba taas waa mid tan labaad waxa weeye Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu yiri maalintii aniga dagaalka la igu soo qaaday dadkii ka garaabay ee dulmiga aan tirsanay waa isagu sheegay dulmiga aan tirsanay iiga yimi sida dhaqanka Soomaaliyeed ahayd iska bari yeelay waxa kamid ah uu yiri Sadiq John oo dad ehelkiisa uu tagay inuu raali galiyay waxa kamid ah uu yiri ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayre former prime minister ra'iisul wasaare hore waxa kamid ah uu yiri ninka la yiraahdo Shambalooshi oo isna dhowr qof baa adigu uu yiri iga raali galiyay wixii ka dhacay meesha saddex nin oo isku reer uu sheegay waxa يا عد صدق ذا يمنا وحي عديم بوير إن أد أجوين ولها فرماتشو يفاد especially فرماتشو إنه إيه طلعها بوير ونك واحد سوء أبابلي وسقعها وأنت كان كهلا وحوي يا عضينا يا صدق إنه المارير مركز وريستو المارير تا وسيمبلوش أنا شلي أركي إنه حمر كجاد اللي يراها هويه وقريها قاطو فرماتشو كدعية يصادق شون وحلا روحه كلا أوجي أي سنشرينه وشلا الدنبيدي وجيستي inta laga mayray janaanimadiisi dib lagu soo celiyo Xasan Sheekh uu soo celiyay war dadka noocaas aan wax faaliyo iyo wax kirdhida aan umada Soomaaliyeed ku lahayn marka aad wareysatid Shambalooshi hay'adii isagu uu ka shaqeynayay ee nabad sugidda ee lagu aaminay qarankii maalin kasta YouTube iyo media la soo taaganay sirti qaranka sheegaya ee adduunka meel ay ku qorantay aysan jirin qofku markuu national security dalka uu madax ka noqdo ama uu meel sare oo amniga oo gacanta ku dhigo inuu san sheegin waxa la alaa wixii shaqadii hatta hadii madaxweynaha ay mariyo dhig la kala furtaan waxaad adduunka ka yaalo oo jira wada baari kartaa dadka nabad sugida ah ina dafle oo wali ka hadlay mid aragteen waxyaalihi godka jira oo ka dhici jiray bariga siyaad barijo ilaaha oo naxariistay wiligiin arkimaysan dadka sirdoonka u shaqeeya ee akademiga ee waxan bartay muslim iyo gaaloba shaqadii ay ka shaqeeyeen ee qaranka ee nabadda iyo dambiyada culculus baaraysi ma sheegaan hadii xitaa soo xilka looga qaado ma sheegaan way la gud galaan mid wax ka qora buug ka qora wajan wax weyn laakiin aan qaranka iyo dalka kursigiisa heegadiisa cunaa ahayn oo kursigiisa aan dib u caayeen war Shambalooshi waa ninkii kursiga uu fadhiyay faaqaya oo sirihii sheegaya ubaxta gabadh yar oo la dilay in la dilay taa anagu ma xaqiijin karnaa arinteedii ka hadlaya dadka noocaas Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ilmaadeerta ee ehelka ee qaraabadaada ee haweenimada ay ku wantay marka wareysatid yaa cadaynaya inay run sheegayaan qaarkood Farmaajo ku kacsanayeen anu Shambalooshi Khayre iyo Khayr Farmaajo ma soo wadaan ee Sadiq John oo la eriyay si loo cadaynaya warkaas inuu sax yahay in kale yaase la rabaa inay cadayso
haddii se farmaajo uu dembi galay oo aad dembi aad u haysatid in adeerow gacaliyow maalin kasta masaajid iyo janaaso iyo qabri dushii ha ka baroorane haddaad haysatid wax proof oo cad kal dacwadeed furo maxkamadda tag soo caddayso ciddii falkan ka dambeysay ciddii dishay ninkii soo amray baan anigu haystaa dalka madaxweynaha ka ahaa qaraxan maanta xamar ka dhacay hotel xayaad iyo ka mas'uul farmaajo ka mas'uul dadka la laayay ka mas'uul ma xasan culuso baa ka mas'uul mise wiilasha taliyaasha ee dalka madaxda ka haddaynu meel aan eedu jirin eed ka doono waa lumaynaa haddaad ninkaa farmaajo wax ku haysatay anigu barnaamij difaacimeyn laakiin waxaan ka hadlayaa boontiga aan ka hadlayaa waxa weeye haddaad wax cad haysatid Soomaaliya waa la iswada dilay 30 sano kabaha la iskala baxay ina qaybdido in adeerka ah dulmigii uu geystay waan ognahay iyo dacwadaha adduunka ka yaala tama iman karo wadamada dariska ah muuse suudi ba kowka in adeerkaaga labaad indha cad ayaa kamid ah kuwii biyaha dadka ka iibin jiray ee meedka baaran jiray ee adduunku imika dad Google garay sida arkaysid inay yihiin hogaamiye kooxda caana oo adduunka ay dambiyo waaweyn ka yaalaan lix kamid ah wixii dadka hogaamiye kooxyada Soomaaliya joogi jiray afarta ugu caansan ama shanta ugu caashan waa beeshaada aday magta kula bixiyaan kuwa maxaynu marka xukun u soo istaajin weynay nin la doortay duhur cad electro halka lagu doortay madaxweyne Soomaaliyeed ee muslim iyo gaalaba ay qirayaan waxa ugu yar oo uu qabtay inay tahay kala dambeyntii sharciga soo celiyay waxyaalo badan farmaajo ha khald laakiin haddii la rabo in la ismaxkamadeeyo oo Soomaaliya ay dabada isqabsato war kuwii dadka gowrgowracaya baa xamar joogo guriga kula digoon ilmaadeertaa adeer kuwaana la soo maxkamadeeyo in qaybdii wuxuu gaalkacay ka sameeyaan ognahay dhowr isqaashanka inda cadaan ognahay wuxuu sameeyay masiibadii dalkan ka dhacday looma kala hadhine nin walba faylkiisa malafkiisa soo qaato hal xisaabtamo hawiye waxay dalka u geysteen dadka miisaanku fuulaya la xisaabtamayna ku idinka ka ninka odayga ah ee xasaanada la siiyay ee si sharafa power transfer si nabadgelyo u sameeyay duhur cad halka ka dhaqaaqay xubin yar oo xubin sharafeed loo dhaariyay inaad buq ku furto oo xitaa cod aad heli karo weedo afar qof ama shan qof ay ku taageerto adigana ceeb bay kugu tahay sharaftaada iyo creditkaagana way dilaysaa nin siyaasi ah baatay kiiska in adeero ka seexo halka iska dhig farmaajo raali gelin waayay si dhaqan iyo si dawladnimo midna igama soo garbixin baa tiri maranagu ku hadlayna magaca beesha daarood baan ku raali gelinaynaa haddaad raali gelin ku nasanaysid oo buuqa ku joojinaysid farmaajona waxaan hubaa waan halka ku fadhiyaa caawa inuu soo haynin cuqdada hayso inuu soo haynin beereed inuu soo haynin qabiil ku wan yahay in qarannimada meesha uu madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya ay kaga weyn tahay xayndaabka yar iyo beelaha 4 sano ayaad beel la soo taagnayd halka ee Allah farmaajo lagu soo duulay maraxan baa dalka wuxuu ku haystay oo shirar beeleed oo qabiilo ay soo abaabuleen adiga iyo Xasan Culusugan madaxweynaha ka qayb galeyseen hal shir xitaa markuu qurbaha farmaajo joogay oo opposition ka ahaa iyo markaanu xilka baahayn xitaa uu Buffalo New York joogay wuligii isagoo shir qabiil ka qayb galay lama sheegin idinkoo dalka madax soo noqday oo han madaxweyne adiga kugu jiray Xasan Culusugan oo dalka madaxweynaha hadda ka yahay ayaa shirkii beeshii hawiyaha dhex fadhiyeen hawiye action group aad funaanadaha hoos ka gashanaydeen ay hawiye ku xardhan tahay shaar cadna aad Soomaali soo xiranayseen warweyd ognahay waxa tiinay idinka muftaxo maxamarna idinka digan 200 qof haday dhimatona 99% idinka noqonayaan dad ku dhimanaya xamar Soomaali kale xamar joogta ma jirto iyo dadka cadcadka masaakiinteedii la digan mooyaan haday idinka burburtana hawiyoon bay ka burburaysaa cid kale kama burburayso saaqna waa ka tashaday iyo hartigii la socday iyo Samaroon iyo Ciise maamul dhistay oo Soomaaliland tigi oo baraaray oo nabadgeliyo iyo xasilooni iyo kala dambeyn iyo dimuqraadiyad ay ka jirto afar shaqatigii waa xamar jooga mooyaan way saaq ma jeerteen iyo intii la socotay Ilaahay wuxuu ugu darayna hadii waa kuwa Puntland dhistay 24 sano jirta watiil 2 bil ka hor loo orash ku bacdi loo dabaaldegay 24 sanadii ka soo wareegtay cidda idinku hadhay u talanaysa waaye hadda caasimada muran gelisaan oo qofkii madaxweyne noqdaba aad yuutan iyo buuq iyo inaad kaf ku tuurtaan aad bilowdaan adeer waa la idinka tashanaya cid idin imanaysaana ma jirto idinka iyo dadkan cadcadka ee masaakiinta iyo Soomaali baantuuga aad 20 sano biyaha macaan ka gadayseen oo indha cad in adeerka uu ka gadayay unba isfuran
cid kale oo idin imanaysa muslim iyo gaalo idin imanayaan ma jirto adduunkiina hadda idin baray qolo walba sida loo dhilgaraynaya Somaliland sida loo dhilgaraynaya Puntland sida loo dhilgaraynaya homeworka iyo ila meereysada 30 sano ku jirteen 30 sano damana wad ku jireysaan illa dawladnimo ma rabtaan illa dhaqan Soomaaliyeed ma lehidin dawladnimana ma rabtaan 30 sano ayaa leedin sugaya war idinku soo heshiiyay علمهدي عيدي وحكر العيبة اللوجية وربل إذنكوا سواها شيء زياد برهادات ظهر ساعتين ووضع كبحي يسوق قلنكي وحكو قرية وكرسي أنتو لجي وكتجي وجارق قاطي وكهاجر الدلكة واحد ودق لما يسين كرسي وكفر لي وحاسون معه ما حد سو كرسيين إذنكي بقى لبا لا يدين كالقفت صدق سنة دقال بيكو جرتين مركز كرسي دون ميديا يعني ليك دون بقى هيدين زياد برهادات لدي رسنا يدين تسياد برهادر دلكة كتب بح ينتي لسعوتي تونا ويكا بيعان دلك حداد حكون دونيسان دلك اياد مركا لقعنت كودكتان لو ريغي لهاي دوناد معمولو لهايدين لكن نمان حكون دونيا ما هيني نمان اي ugu baxdo baatiin bariiska dhacay baastada dhacday iyo saabuunta dhacday inay soo dejisaan oo xamar keentaan oo wax quality control ay wax system leedin ma soo mariyo saasay idinka idinku baxdaa 30 milyan haysan ognay wuxuu dhiiga ummadda Soomaaliyeed ka dhistay hotelku ka dhistay stiil loo rabaa inuu xil Soomaali xil u qabto wartadka noocaas tihiin Soomaali idin baratay dadkii kale ee dariska idin lahaa iyo ummadihii kale ee dariska idin lahaana idin baratay waxa tihiin aniyo army ku quman tahay inaad istartiibisaan oo balhawiyo intaad aqligeena dib u celisaan aad tiraahdan war dhibtu anagay nagu dhacaysaa kan shabaabka ee qorigiisa waa anaga kan wax dilayana waa anaga kan dhimanayana waa anaga maxaa noo xala hadda markaad go'aansataan inaad nimanka shaadiinta ku biirtaan oo waa la gashaan تفلله الحمد هدد بكجرتان سدد بني كبيرة هدد ربطان إن صومالي النمو إيو وحود اللهان شون الدب لو سعودينا تقول ما ذا ريال وقوقلنا بعدين لقى يدينكو دحدين لها شيء أو تذكرين لها شيء وريتا سنكسو كوبيا مقالك سي شركة